subax wanaagsan. saaka waxaan u jeclaystay inaad halka isugu timaadaan inaan idinkala hadlo waxyaalaha aan isleeyahay danta caamka ah waxay ku xiran tahay shaqadeena iyo ragga baridiisa waxaa suuro gasha inaanu iska naqaan banaanka laakiin cadaalada ragga haya in haddana aanu wejiga iska baranno anigu inaan barto waxaa suuro gasha iyagu intooda badano inay yaqaaneen saad u tihiin dawladdu waxay ka koobantaa xubno badan oo xubnahaas badan mid walba haddii ay hawsheeda sida xalaasha u haysato dawladnimadii markaas ay suuro geli karto xubinta adinku aada haysaan waxay ka mid tahay xubnaha qiimaha dheer u leh dawladnimada suurowgeeda haddii aynan jirin ama aynan caafimaad qabinna ay dhici karto dawladnimadaasu mid magaca inay noqoto haddaynu maskaxdeenna dib ugu noqonno waxaynu arkaynaa iyada oo dalkoo idinaba uu si u ba'sanaa oo si aan hufnayn us ahaa haddana dhutinta weynu waxay ku suurowday cadaaladda inayan sidii loo rabay aynan ahayn iyada oo sababuhu ay fara badan yihiin oo haatan qof khaasa aan la saari karin haddii aynan taasu dhicin cadaaladdu ay ku joogi lahayd amaba loo dayn lahaa hawsheedii inay sidii xaqa u qabsato ma ay dhici karin haba yaraata ee maamulkii xumaa oo dalka lumiyey dibna u dhigay hore u socodkii adduunkaoo idil jiray taa waxaan u leeyahay haddee wixii xumuuba sharci baa yaa ku fadhiya oo sharci baa jira baab qaban hayaa jira haddee baabka haddii lagu qabto waxay la tahay tuuga ma dhacdeen laalushu ma dhaceen waxa haatan loo baxshay musuq maasuq ma dhaceen waxa saad u ogtihiin nimankii khabiiriinta ahaa ay ugu yeereen waa siyaasaddaa doonaysa oo beenta ahaana ma ay dhaceen wixii siyaasadu doonayso iyo waxayan doonayninna waa kala caddaan lahaayeen haddii sharcigu sidii loo soo dejiyey ama aynu kitaabada ugu dhigannay usu fuli lahaa taa yacni waxaan idinka xusuusinayaa habowgii hoggaanka dalku us habaabay hooyadiisii waxay ka mid ahayd ama waxayba ahaydba sharciga oo shaqadiisii aan qabsanin waxaa isweydiisla marka habowgaasu maxaa u sabab ahaa ma ragga qaaliyaalka ayaa u sabab ahaa mise waxaa u sabab ahaayeen siyaasigii mise waxa u sabab ahaayeen nidaam xun oo dhashay maxaa u sabab ahaayeen waxaan odhan karnaa markaa sababuhu waa badan yihiin haddaba si aanan midna waxba ugu dhimin waxay ku hagaagsan tahay sababtu si kastaba ha ahaadeene cadaaladdu sidii qumanayd uma aynan fulin muddadii aynu soo dhaafnay maanta taariikhdeennu meel dheer bay ka soo bilaabatay laakiin 21kii oktoobar waxay furtay baal cusub maanta baalkaas cusub ayaynu wax ku qoranaynaa isaguna waxa weeye wax walba dhabbihii xalaasha ahaa inay ku fulaan cadaaladdu waa inay ku fushaa qolada sharciga samaysaa waa inay ku fushaa qolada shaqada maamulka dawladduna waa inay ku fushaa shicbiga soomaaliyeed waa inuu ku fulaa nin shaqaaluhu waa inuu ku fulaa beerleydu waa inay ku fushaa xoolo dhaqatadu waa inay ku fushaa dadka tacliintu waa inay ku fulaan nin walba waddo cad buu leeyahay waddadiisa waa inay ku socdaan taasu waxay marka suuro gelinaysaa dad qoom ah oo dawlad ah oo socda oo sharaf leh inaynu noqonno ayay suuro gelinaysaa haddii qolaba dhabbaha xaqa ay ka leexato oo u weydaarato qolada kale dhabbaheeda wax walba markaa waa markay isku qasmahayaan kadibeedna waxay dhalaan ay tahay xumaan iyo musuq maasuqii foosha xumaan waxaan leeyahay marka bacdama intii revolutionka us dhacay amaba
dadka salabka sida ay xukunka dalka la wareegeen iyo intay dawladda dhiseen intaba aynan suuro gelin adinkoo khaasa inaan idinla hadlo saaka yacni sababteedu taas bay ahayd saaka ururkeennu ama aniga ujeeddadaydu waxaa weeye mas-uulkii aada lahaydeen dhabarka inaan idinka saaro wax marmarsiinyaha oo suuro galaana inaynan jirin mas-uulkaasu waxaa weeye xubinta lafdhabarka ah xubnaha badan oo dawladdu ay ka koobanto adinka haysaan qaaliyaalka yahayaan meel kastaba ha joogeen shuruucdii waddanka lagu wadi lahaana giddigood waa dhigan yihiin oo mid aan oolino ma jiro ama ha noqdo midka casriga ha noqdo ama midka sharciga ha noqde mid aan dhignayno ma jiro waxaan idin weydiisanayaa inaad fulisaan sharciga oo sida xaqa aad u fulisaan waxaa caadada adduunka ama taariikhda aan ka akhrisan jirnay ama haddaanu dalalka adduunka aanu marno aanu la kulannaa monumentooyin waaweyn ama yacni sawirro waaweyn oo muxuu ahaa meelaha caasimadaha dawladaha hore u kacay ka dhisan oo ay u dhisan yihiin niman qaaliyaal ah oo geesiyaal ahaayeen oo la dagaalamay shubada ama laaluushka oo la dagaalamay cadaalad xumada oo la dagaalamay xataa madaxdooda oo ka hor istaagay dadkoodu amaba dalkoodu inuu wadda xun qaado oo iswaayo nabadgelyo ama cadaalad iswaayo annagu xaq baanu u leenahay raggaasu inay naga soo baxaan ku dagaalama cadaaladda geesiyaala aan ka baqin damaaciga adduunka kuwa hor istaaga tii xumayd oo qolada ahayd oo lala ordi jiray hor istaaga kuwa cabsi geliya hor istaaga waanu u baahanaa annaga naftanadu waana adinka hadda saaka iyo hor fadhiya ragga ku duuli karaa qiirada caynkaasa oo marka sharaf wanaagsan soo hoysan karaa mid haddii laydin fiiriyo adinka oo sharfaaya qaaliga ninka la yidhaahdaa qiimaha uu leeyahay ragga cadaaladda maamula qaarkood laakiin annagu kulli baan u naqaanaa ninkii haya muxuu ahaa cadaaladda fulinteeda mas-uulkeedu uu saaran yahay oo idil baanu u naqaanaa saa yacni waa u baahan tahay soomaaliya inay hesho wiilal noocaas ah oo taariikhda adduunka ah wax badan baan aniga naftaydu la kulmay ama akhristay qaali aad iyo aad looga baqo laakiin baqdintaasu ayaan ahayn inuu dad uleeyo baqdintaasu ayaan ahayn inuu muxuu ahaa wax kaleeto sameeyo laakiin haybadiisa laga baqo ka timid naqidda uu naqahayo sharciga oo uusan marnaba ugu asxaanfalaynin oo turjubaan xaq ah keliya waxaan idinka rajaynayaa baalkii cusbaa oo taariikhda soomaalidu ay ka bilaabatay aniga oo tixgelinhaya ama adinka oo ka bilaabahaya in aad shaqadiinna u gudataan sida fiican geesinimada ah wadaninimada ah islaamnimada ah waan sheegay maalin dhoweydna haatanna waan idinku celinhayaa annagu haddaanu nahay dadka sulubka sida ama hubka sida amaba guddiga sare oo muxuu ahaa revolutionka ka kooban ma doonayno inaad dadka noo xirtaan bilaash ma rabno annaga waxaanu dagaalkanagu uu ka koobmay cadaalad xumada inaan la dirirno sidaas baanaan u yeelaynin marka cadaaladda marka lagu cayaaro haddana inaanu magaca annagu sidno xumaantana dad kale ay sameeyaan taas la yeeli mayno sharci naga xidhaayaana ma jiro meel lagu gabanayaana ma jirto ninkii ay ka dhab tahay ilaahay horti inuu dadkiisa xaq u xukumana waa midka aanu garab taagannahay waxa wanaaga uu mudan yahay aan marinayno midka musuq maasuqii maskaxdiisa ka fujin la'ana ka aanu yeeli mayno in annaga ceebto ay noo timaado isaguna uu falo oo ceebta sameeyo taas ka yeeli mayno yuusan ku riyoon
taas waxay inoo kala dhigaysaa haddii kalsooni shaqadaada inaad ku qabsato ma rabno inaad naga baqdo ma rabno sekretariga cadaaladda inaad ka baqdo ma rabno inaad qolo kale ka baqdo damiirkaaga inaad ka baqdo waddankaaga inaad ka baqdo ilaaha inaad ka baqdo oo xaq aad marka ku fuliso taas baan kaa doonaynaa waxaanu doonaynaa inaad shaqayso oo saacadda u dhigan dowladda waxaa weeye halka saac ama 7 nin walba si u yaqaan in shaqada la tago in saacadda qayiman iyadana oo go'aan laga baxo ma ogolaan karno 5 saac nin shaqo tagaaya dadna u soo xoreysan yahay oo xabiska isugu jiro ma ogolaan karno muxuu ahaa midda la yiraahdo xorriyadda duminta ah oo laynoo dhigayna yeelimayno waxaan idinka doonaynaa Soomaali ahaan inaad gidiga u kacdaan oo shaqada aad u fulisaan faylalka badan oo iskor saaran meel walbaba dalka Soomaaliyeed oo dadkii iyaga muxuu ahaa faylalkaas ku saabsanayeen ay xariga ku jiraan taasna ma ogolaan karno oo qalad weeye awal cadaaladii baad marka hore ku gafaysaa dad yeesho leesh qof insaan ah oo ilaahay abuurtay oo xornimadiisa aad ka qabatay meel kuugu xiran ayna fududahay in aad ama dambaad leedahay ama laguma la atraada midda labaadna waxayba u tahay cadaawad dhaqaalaha dalka la diriraysa nin bari la sii dayn doono in muxuu ahaa 4-5 bilood xarig ku jira taasuna waxa weeye cadal wadanimo hooyadeed bay ka bilaabanaysaa 5 bilood oo masruuf ah oo wax kale lagu qaban karay waxa nin loo cunsiinayo iyaduna waa yaabkeed bay ku jirtaa haddii laba dhanba laga eego waxaan isleeyahay ninka xaakimka naftiisa waxay ku tahay cuqdad aan ka baxayn maxaa waay markuu min dambiile yahay waxaan ugu ogahay inuusan hameenkii seexanin walwal miiran kaasaa kuu dhiman keeraa kuu dhiman goormaad samayn doontaa berri u dhigo saad dambaad qaban doontaa suu leeyahay inuu ka nasto oo madaxiis bannaan uu marka wuxuu qabsanayo kale u qabsado ayaa uga roonay waxaa hor fadhiya madaxweyne maxamed cali sharmaan haddii ay u yaraato 2 sanadood ayuu hayaa xukuumadda militariga fulay baa la yiri nin dhintiya nin dheer mara gashada xakaamada militarigana anaa madax u ahaa weydiiyo waligay nin sii daaynaanay markii aan shiriyo xakaamada militariga wixii aan kala dardaarmi jiray waxay ahayd ha ka baqin cadaaladda haddii ninka laga gardanaya askariga siida haddii lagu garleeyahay shicbiga iyo wadanka ka khayroon xir saas baan oran jiray waligay nin siida ma dhihin u yaree ma dhihin ha laga daayo ma dhihin ninkii aad ku maqasho iisoo sheeg anaa xirayo isaga baan oran jiray macnaheedu waxa weeye waa inaan aaminsanahay cadaaladda leesh sharcigu waa inuu ka sarreeyaa nin kastaba ma aha sharciga in ragga qaarkii ay ka sarreeyaan oo ismoodaan ama markay xoogaa xoolaa leeyihiin ama markay boos hayaan inay sharciga ka sarbarayaan been weeye sharciga nin karbaray ma jiro taas waxa weeye qaraabka waddanka marka uu socdo markii sharcigu uu hoos maro oo nin us yiraahdo hadda sharciga nin baa sameeyay ana maan sameeyo sharciga nin baa sameeyay laakiin wada xaala oo quman oo dhabayaal badan leh oo laga fiirsaday baa loo sameeyay waxaa loo sameeyay maslaxadda caamka ah ninka xulna in lagu qabto oo khaaska ah kaligiisa caamiyadana nabadgelyadooda iyo maslaxadooda in lagu daafaco marka nin kaliya marka see ku samayn karaa kii laga gaashaabanayo sharciga loo sameeyay isagii weeye see ku bedeli karaa taa nacam sharcigu waa inuu dul jooga isagu taas yani waxaan ka wataa aniga oo hawl wanaagsan idinku ducaynaya haddana sharcigii waa inuu sarmaraa ninka laakiin naqahaya naftiisu waa inuusan u qaadan mar hadduu isagu naqahayo sharcigii inuu yahay isagu sharciga ma aha waa ka turjumaanaya keliya waxaan ku cilmi leeyahay in dhibaatooyin badan adinka naftiinu aad la kulmaysaan oo cadaaladda lagu goynaysa inay dhici karto dhaqaalaha inaad ka cabataan qoladiina tanu oo aan la socday waxaa dhici kartaa inaad meeshii wax lagu xukumayo aad ka cabataan oo aan fahmi karo waxaa dhici karaa wixii wax lagu xukumayay oo alaabo ahaa oo suuro gelinayay xakaamaddu inay hagaagto inaad ka waxaysan tihiin waa dhici kartaa laakiin Soomaaliya waxay ku maamaadaa nin walba taagtiis baa qodox ugu tagtaa awoodeennu hadday inoo diido sharcigeenna
waa inaynu ku goosanaa ama ku guddoominaa geedka hoostiisa. ma jirto sabab aynu odhan karnaa waxaa maqan miis qurux badan oo ballaaran, kuraas qurxa badan, kuwaabaa maqan marka sharcigii socon maayo. no, taas waa inayn dhicin. wax lagu xukumaa waxaa weeye aqoonta sharciga oo ninkii sharcigii fulinhayaa ay lagama maarmaan tahay nin u qalma inuu meeshii joogo. midda labaadna waxaa weeye niyo wadaniga inuu leeyahay. midda saddexaadna in uu fahmahayo cadaaladdu waxa ay tahay iyo xubno kaleeto oo badan. intaa hadday joogto kursigu waxba lama maqna. waa ay habboon tahay in waraaqihii, buugagii, qalimadii, qaddii, kursigii, xafiiskii, gaarigii, reerkii inuu isku rakibaya waa fiican tahay. laakiin haddii la waayo oo awoodda waddanku isgaari waayo, adiguna waa joogtaa, aqoontiina waa leedahay, ummaddiina inaad kala saartaa lagaa doonaya. intaba marka waad heli kartaa. waxaan rajaynayaa inaynu marka kala aanu hubsanno mar walba inaynu tixgelinno dalkeennu muxuu dhali karaa, wixii inaga maqano maxay inooga maqan yihiin. haddii awalto aynu saaraynay maamul xumo, ballan baan idinka qaadahayaa maamul xumo wax nalaga xada maahe waxaanu annagu guddoominay inayan jiraynin. wixii naga xadana ragga ku shaqalow hadday ku qabtaan inaan laga daba tegayn oo noo siidaa waa qaraabadanada inayan yeelaynin. kuwaasna adinkaan idiin keeni doonaa. waxaan rajaynaynaa xukunkooda inaad marisaanin. waa kuwii naga xadaa, annaguna saasaan u guddoominaynin. waxaan ku soo koobahayaa dadka inkasta oo aad sharcigii ku jirtaan oo sharciga dadkii madaxda u aad tihiin, annaan ka xumahay inayan suuro geli karin halka in lagu soo urursho qaaliyaalkii waddanka, balse aan hubo adinkuba aad u warrami doontaan. annagu waxaanu suuro galsinaynaa haddii alla idmo, aniga iyo revolutionary councilba ama armed forces, in aan annaguna aanaan ku joorfalin, anaana u ogolaan qolo ku joorfalaysa sharciga. adinkana waxaan idinka rajaynaynaa ka turjubaanida sharciga aanu kuna tashanayno in aad muxuu ahaa wax ka qabanaysaan. anigu waxba ka sheegi maayo hadallo badanoo lagu hadlo, laakiin caqli iyo faham adinkaan idin daynaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.